hadda waxaan ku celinaynaa reerkii reer Mustafa ku celinayna waxa fardii xabadii la gami jiraa macalisa ku jiro marka insha Allah khayr iyo barwaaqo rajayna bidna al-karim haddana waxaan ku gudbinaynaa Sheekh Mustafa oo maartan haddana waxaan ku gudbinaynaa Sheekh Mustafa oo macnaha imaamka maartan masaajidka Hillside oo sama macnaha maanta meesha mas-uulka ah meesha waxaa fadhiya Cabdulqaadir Xaaji Cusmaan oo aabaha gabadha ah iyo waxaa fadhiya Liibaan oo gabadha rabo iyo Mustafa Aadan iyo odayaradii iyo abtiyaasha baa fadhiyaan iyo abti adeer waa fadhiyaan dhammaan gogashaan habaryaan iyo maartan eediyaalna way fadhiyaan dhammaantood waxaan leenahay raalli ahaada dadka meesha fadhiyo idinna way mudnaayeen meesha in la soo wada saaro laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta kooban waxaa loo subinayaa من بريء لو أفضل تقبل مرقاتين كنا قلنا سنوات يا رب ما تلاقي سبحان الله نقول لنا نقول هالكلام هذا حكون موجود بنا يا شيخ مصطفى وهنتي سهوش اسم الله نقول بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وقولي إن شاء الله بإذن الله by Allah's grace and Allah's mercy إن شاء الله we'll be conducting and we'll be finalizing and culminating إن شاء الله the marriage of our brother Liban Mustafa Adam and إن شاء الله Hana Abdul Qadir Usman إن شاء الله. So alhamdulillah the means and the sequence of the marriage contract is something in the Islamic tradition is very simple, it's not something very difficult. It's something called ijab wa qabul. What we're going to do inshallah is I'm going to be acting on behalf of the wali, of the girl who's the father, Muhammad Ali Abdul Qadir Usman. And inshallah inshallah I'm going to be acting on behalf as a wakil. Inshallah, I'm going to be speaking to, inshallah, Brother Liban, inshallah, I'm going to be offering him, inshallah, I'm going to do it in Arabic first, and inshallah, he's going to accept, inshallah, we'll do it in Arabic, and then we'll do it in English, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله by the name of Allah subhanahu wa ta'ala زوجتك يا سلام waxaan aad u faraxsanahay walaalkii Mustafa wiilkiisii iyo gabadh aan walaaqaydan waalid kale oo madax بأمر وليها عبد القادر عثمان إلهي أروس غير قبل أنه هل قبلت زواجها؟ قبلته. جزاكم الله خير إن شاء الله. I'm going to repeat that in English إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most gracious and the most merciful. Inshallah, Brother Liban Mustafa Adam, I offer you as a form of ijab, Hana Abdul Qadir Usman, with the permission of her wali, who is with me, her father Abdul Qadir Usman, for you to marry her, inshallah. Is this something that you accept? I accept. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. The mahar, inshallah, sometimes in the Islamic religion you can mention it, sometimes you don't have to mention it. So it's the choice. So the mablagh should be mentioned, you want to mention it, inshallah. It's the sunnah. The sunnah is to mention it. It's 3,000 pounds sterling. That's the mahar, inshallah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your marriage. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a success, inshallah. May Allah give you righteous offspring. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you in this world and afterlife. Both of you, your families, inshallah. May Allah bring the families together. May Allah make it a blessed marriage. Ameen, ameen, ameen. waxaan kusoo dhaweynaynaa wiil maxamed yare oo ah adeer oo cidda ugu yar maxamed soo dhawow taa laba yar ka dheh gabadha adeerkeedu waay Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. If I could just ask everyone just keep the noise down, as I want to give a reminder, inshallah. I want to talk about the importance of marriage. And everyone just keep the noise down, please, so I can continue talking and everyone else can hear, inshallah. I'd like to begin by mentioning some of the benefits of marriage, inshallah. As we all know, there's many things